بسم الله الرحمن الرحيم maxamed maxamuud cadde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu horeeya xamaas ayaa cambaaraysay hadalla ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo war adag ka soo saartay hadalla ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil maxay haddaba hadaladani ku aadan yihiin maxayse tahay jawaabta xamaas waa idin faahfaahin doonaa dowladda waddanka Lubnaan ayaa si adag geeska u gelisay eedeymo ka soo yeeray dhanka Israa'iil oo ka dhana ciidankooda kuna xiriirinaya ururka Hezbollah sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa Israa'iil oo ka walaacsan in wararka warbaahinteeda ay tibinayso iyo wararka laga helayo diblomaasiyiinta inay dhalin karaan weerar degdeg ah oo Iiraan ay soo qaado taasoo ku imaanaysa xisaabo qaldan oo isku dhufsato oo ah in ayada duulaan lagu soo yahay xaaladda magaalada Xalab ayaa lagu soo warramayaa inay degan tahay waxaana ka jirta deganaansho aan cagacda ku taagnayn kadib markii xalay halkaasi dagaallo ay ku dhex mareen ciidamada dowladda Syria iyo kuwa SDF ee Kurdiyiinta Ruushkuna dhul horla ayuu ka qabsaday Ukraine oo xaaladdu ay ku sii adag tahay iyadoo maantana Ruushku duqeymo culus oo ku qaaday 13 gobol oo caasimadda ay ku jirto dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka warar Israel Katz oo sheegay Israa'iil in ay si joogta ciidamadeedu sii joogi doonaan gudaha marinka Gaza afhayeen u hadlay Xamaas Azim Qasim ayaa sheegay hadallada ka soo baxay Katz inay u taagan yihiin xadgudub ka dhan ah xabad joojintii la gaaray wuxuuna ku eedeeyay Israa'iil inay qorsheynayso in ay barakiciso dadka magaalada Gaza ku nool taasoo ka dhan ah heshiiskii nabadda ee Mareykanka ee la xiriira marinka Gaza Katz ayaa mar hore sheegay munaasabad uu kaga hadlayay arrimaha daanta galbeed in Israa'iil aynan marnaba ciidankeeda kala bixi doonin marka Gaza wuxuuna sheegay in laga abuuri doono jidgooyooyin waqooyiga Gaza kuwaasoo u taagnaan doona buu leeyahay waqtiga munaasabka ah iyo xaalad munaasab ah mar dambe ayaa waxaa la soo saaray macluumaad lagu kala cadeynayo Israa'iil ay ku sheegayso inaynan ku tala jirin inay deegaana ka samayso Gaza iyo deegaanka loo yaqaano buundada Nahaal oo ay ciidamadu sababo ammaan u joogaan oo kaliya hadalladan ayaa soo baxaya iyadoo ay socdaan dadaallo la rabo in hore loogu dhigo wajiga labaad ee xabad joojinta qorshaha Mareykanku uu soo jeediyay Israa'iil ayaa ku adkeysanaysa Xamaas in ay waajib tahay in hubka laga dhigo halka Xamaasna ay dalbanayso in dhammaan Israa'iil ay ka baxdo dhammaan marinka Gaza militariga Israa'iil iyo saraakiil ka tirsan ciidamada sirta ee Israa'iil ayaa digniin ka bixiyay hadallo si hoose loogu dusiyay warbaahinta Israa'iil oo ka hadlayay inay suuragal tahay in colaadda Iiraan iyo Israa'iil u dhaxaysa in ay dib u soo noqoto taasoo horseedi karta xisaab xumo iyo falcelin culus oo dhanka Iiraan ka timaada taasoo dhaba u xaari doonta dagaal ballaaran oo aynan dhinacna doonayn inay dagaalkaasi qayb ka noqoto ama Israa'iil iyo Iiraan warbixinadan ayaa inta badan lagu xiriirinayaa diblomaasiyiin sarsare iyo ilo reer galbeed oo xogta ururiya mana aha baa la yiri mid jeedin karta dareenka arrimaha ka jira waddanka Israa'iil gudihiisa iyo baaritaanka lagu xiriirinayo weerarkii Israa'iil ay ku fashilantay Oktoobar 7 iyo in dib loo dhigo meel marinta wajiga labaad ee marinka Gaza ee xabad joojinta la xiriirta iyo in khatar dhab ah ay ka dhalan karto haddii dagaal cusub Iiraan lala galo sida saraakiishu hadal ku dhigayaan saraakiisha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay isfaham la'aan iyo warbaahinta bunbuunin haddii ay baahiyaan waxay horseedi kartaa Teheraan ama Iiraan in ay u turjumato fariimaha Israa'iil inay diyaar u tahay dagaal inay dardar geliso taana waxaa laga yaabaa inay ku dhiirigeliso Iiraan inay qaado weerar ka hortag ah oo aayadda aan lagala hormarin mas'uuliyiinta waddanka Suuriya ayaa sheegay in noloshii ay tartiib caadi ugu soo noqonayso deegaanada ku xeeran magaalada Xalab ee waqooyiga waddanka Suuriya kadib markii
dagaallo dhiig badan ay ku daateen ay dhex mareen ciidamada SDF loo yaqaano ee Kurdida ah oo 4 qof ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen oo caruur iyo dumar ay ku jiraan. ciidanka ammaanka ee Suuriya ayaa sheegay in xaaladda caadi ku soo noqotay in kooxihii hubaysnaa ee madaafiicda goobta si aan kala sooc lahayn ugu duqeynaya magaalada iyo weerarada niishaabka ee gaadmada ah magaalada Xalab inta laabo laga qaaday halka gudoomiyaha gobolka Azam Al-Gharib uu asna ansixiyay in dhammaan shaqaalaha dawladda iyo adeega dawladda la joojiyo ay ku jirto waxbarashada. sida laga soo xiganayo wasiirka caafimaadka tirada ugu dambaysa dadka wax ku noqday weerarka ay SDF soo qaaday ayaa lagu sheegay 4 qof iyo 14 dhaawac ah. Ciraaq ayaa gaaska ay ka heli jirtay Iiraan si ku meel gaar ah loo joojiyay iyadoo hay'adda korontada ee Ciraaq ay sheegayso in korontada go'day ay ku timid baa la leeyahay iyadoo la xiray qaybihii korontada dhalin jiray sababo la xiriira in culayskii uu ku batay. wasaaradda ayaa sheegaysa 4,000 ilaa 4,500 oo megawatt oo awoodda korontada ah in nidaamka korontada ay ka luntay natiijada ah Iiraan oo joojisay gaaskii dhankeeda ka imaanayay. Iiraan dhinaceeda ayaa fariin u soo dirtay wasaaradda korontada ee waddanka Iiraan oo sheegtay sababaha gaaska uu istaagay yihiin xaalado aan lagu tashan. Iiraan ayaa siisa $3 markii loo qeybiyo dalool korontada ay u baahan yahay waddanka Ciraaq 40% gaaska iyo korontada uu u baahan yahay waddanka Ciraaq waxa uu ka helaa Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maamulkiisa ayaa ku soo rogay Ciraaq in ay qaado xanibaadaha la xiriira shidaalka laga qaato waddanka Iiraan sababo la xiriira waddanka Ciraaq ayaa waxaa ka jirta koronto la'aan. tilaabadaas ayaa waxay qayb ka tahay sida hadalka loo dhigay in cadaadiska laga yareeyo Iiraan. waddanka Lubnaan ayaa ku gacan sayray Israa'iil warar ka soo baxay oo ay ku sheegayso askari Lubnaan u dhashay in lagu dilay weerar xagga cirka ah isagoo oo marayay meel ku dhow waqooyiga magaalada Sidon. ninkaasi ayaa lagu xiriirinayaa ururka Xisbullah. ciidamada qalabka sida ee waddanka Lubnaan ayaa xaqiijiyay askarigaasi Cali Cabdallah in uu ka tirsanaa 3 askari oo la dilay markii Israa'iil ay diyaarad drone ah la beegsatay baabuur ay la socdeen. waxaana si weyn u beenaynaya bay yiraahdeen wararka ka soo baxaya in askarigaasi uu xiriir leeyahay ururka Xisbullah ama u shaqeynayay ciidamadooda sirta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeynta ay la beegsadeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Xisbullah ay ahayd in laga hortago kooxdaasi inay awoodeeda militariga iyo kaabayaasheeda koonfurta Lubnaan dib u dhisto. xiisadda ayaa aad u sarreysa iyo dagaalada iyo xabada isweydaarsiga ka dhacaya xuduudka marka laga gudbo inay jiraan dadaalo caalami ah oo dagaalka hoos loogu dhigayo. wararka caalamkana waxaa ka mid ah ruushka ayaa sheegay in 2 tuulo oo hor leh ay ka qabsadeen Ukraine sida wasaaradda gaashaandhigga ay u dhigtay. dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay qabsadeen 2 tuulo oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ukraine. ciidanka ayaa la wareegay tuulada la yiraahdo Trilivka oo ka tirsan gobolka Kharkiv iyo Andriivka oo ka tirsan gobolka Dnipropetrovsk. wasaaradda gaashaandhigga ayaa xaqiijisay in ciidamadeeda ay burburiyeen goobaha korontada iyo kaabayaal militari oo Ukraine leedahay kadib markii la beegsaday gantaalada guuxooda ka dheereeya ilaa Kanzo. waxaana muuqata in madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky uu sheegay in ka badan 650 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo xayna in ruushka ay la soo tiigsadeen waddanka Ukraine. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin mar kale ayaan idin soo dhaweynaynaa daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii war ah ee degdeg ah ee soo kordha ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina
qibla homes waxay kugu diyaarisay Nairobi South Sea iyo Mombasa Nyali apartments iyo villas ka kooban 5 4 iyo 2 bedrooms oo dublekisa iyo sidoo kale 4 3 2 iyo 1 bedrooms oo caadi ah. guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha. dhismayaasha qibla homes waa Turkish style casri ah, waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo guri casri ah u baahan yahay. waxaana shirkaddu ay kugu baaqaysaa qiimo dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood. faahfaahin dheeraada kala xiriir nambarka shaashada saaran. Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya, waxaana ay ku hawlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey, soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay. waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika, iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela, warshadda hilibka lo'da, warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafa-bixinta hilibka. waxaana ka hawlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey soona maray baaritaanno caafimaad. Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika, Khaliijka. dhowaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub. waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate. shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah. haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta higaada oo loo diyaariyey muddo cayiman, qaybta xifdinta quraanka kariimka, qaybta barashada shareecada sida xadiiska, fiqiga, siirada, naxwaha, tafsiirka quraanka iyo caqiidada iyo wixii la mid ah. waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed, aan ku bilowno qodobka warka ugu horeeya. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo la ballansan Donald Trump dabayaaqada toddobaadka dambe, waxyaalaha sida weyn looga hadlayo waxaa ka mid ah inuu ku celcelinayo marayka Gaza Israa'iil dooni mayso inay dib u dejin u samayso Israa'iiliintii halkaas laga soo raray 2005. sidoo kale 20 qodob Trump uu soo bandhigay qodob ka mid ah waxa weeyaan in Israa'iil ciidankeeda ka bixi doonto marayka Gaza, taaka ka mid ah dhulkaasna aysan qaadan doonin. laakiin wasiirka aadka ugu dhow Netanyahu marka la leeyahay isqilaafsan yihiin hadalkiisa iyo hadallada Netanyahu, maxay ka macno tahay iyo hadalkan ka soo yeeray Xamaas? wararka ugu dambeeya oo soo baxay ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Mareykanka uunan la dhacsanayn Israa'iil sida ay u dhaqmayso. xabad joojintii wax xurmeyn laadahay, waxay kaloo xurmeyn laadahay wadamadii la shaqeynayay maamulada keenay kala shaqeynayay saldhig uu Mareykanku ka samaystay Israa'iil gudaheeda oo laga abaabulayo arrimaha amniga ama ciidanka xasilooninta arrinteeda ayaa Israa'iil faragelin muddo ku weysay. dhowr goor hore ayaan ka hadalnay. hadda waxay soo taray waxa weeye Israa'iil waxa ay rabtaa xabad joojinta iyadoo ku gabanaysa in wixii ay dagaal ku weyday ay xabad joojintan iyadoo ku gabanaysa ay kasbato. Xamaasna waa ka caqli badan yihiin, waana ogsoon yihiin tallaabo kasta ay qaado mid bay daba dhigayaan. waxaadna moodaa in hadda ay socoto olole ah Israa'iil gudaheeda warbaahinteeda ay qorayso in Xamaas ay dib isu habeenayaan, dib isu abaabulayaan, in cunno ku filan iyo shidaal ku filan iyo wax walba ku filan ay haystaan, ciidan badan ay qoranayaan. waxaasoo dhan waxaa lagu majahabaabinayaa in Israa'iil ay fulin weyday qodobkii ugu horreeyay ee xabad joojinta. marka Xamaas la xaqiijiyey oo xataa Mareykanka dhankiisa laga xaqiijiyey in aynan hal marna xabad joojinta ku xadgudbin. tan kale oo Israa'iil ay ka dhex socoto waxa weeye Netanyahu ayaa culays badan saaran yahay iyo xisbiyada xag jirka oo raba inay qarameeyaan 19 deegaan oo hor leh oo dhulka daanta galbeed ku yaala. intaas oo dhan marka laga gudbo waxaa jira dhibaato la xiriirta xagga Israa'iil inay la'dahay in ay kasbato ciidamo cusub ay qorato oo ciidamadii hore ciidanka uga tirsanaa ayaa qaar badan iscasileen, qaar badanna ay sheegeen in waqtigooda markay dhammaaday inay cusboonaysiineen. waxayna bilowday inay hub siiso ciidamo hore uga tirsanaan jiray ciidanka kaydka oo waayeel ah oo da'dooda lagu sheegay 40 ilaa 60 oo barnaamij gaar aan ka sameynay. Israa'iil marka waa isku dhaxyacsan tahay. Xamaas marka ay war soo saarto oo ay tiraahdo Israa'iil xadgudubkaas ayay sameynaysaa, waxa weeye waxaa muuqata mas'uuliyiinta hadlaya
in ay rabaan in ay jeediyaan warbaahinta Israa'iil gudaheeda ah iyo warbaahinta caalamka waxaana muuqata Xamaas tilaabada Israa'iil qaado inay laba ka daba qaadayso waxa Israa'iil hadda ay baxar ku jirtaa oo lagu heshiin lahayahay guddigii baaritaanka samayn lahaa fadeexadii ka dhacday Oktoobar 7 tan kale oo ayadan soo tareysay waxay tahay Mareykankii ayaa wax kasta uu sameeyo ka dhaadhicin lahaa Israa'iil inay nafteeda haligayso waxaana muuqata siday wax u socdaan haday ku socdaan in dagaalkii lagu noqonayo sida qabiilada qaar ay hadal ku dhigayaan way barnaamij baynu ka sameynay caawa arrimahaasi ku saabsan khilaafka ka dhex aloosan Netanyahu iyo Trump barnaamijkaasna caawa soo geli doona maxaynu ka ognaa maxamed arrimaha kale qobarada maxay ka tiri warkan kale oo la xiriira Israa'iil iyo Iran xiisada ka dhex aloosan barnaamijkan ka horreeyay waxaynu ku sheegnay Israa'iil oo ka walacsan Shiinaha oo taageeraya Iran isla markaasna ka caawinaya gantaalada laakiin Israa'iil waxay leedahay waxba dhici kartaba Iran inay weerar soo qaado iyadoo markaasi leh yadiya laga hormaray maxay qobarada ka tiraahdan Soomaalida waxay tiraahdaa hadii god hal mar laga qaniino waa arrin dhici karta laakiin god hadii laba goor laga qaniino waxa weeye mid adiga ka timid khaladka mid oo adiga ka yimid way waxa muuqata Israa'iil dagaalkii gaadmada ah Israa'iil ku qaaday Iran ku qaaday inay darsi weyn ku baratay dagaalkii 12 maalmood ah macluumaad badan ayaa la qarinaya laakiin la fuqurayaasha arrimaha militariga waxay leeyihiin khasaaraha dagaalkaasi u geystay waxa weeye marnaba Israa'iil kuma xisaabtay mana inay filin Israa'iil waxay siisay weerarka gaadmada ah oo ay ciidamada sirta iyo gantaalada iyo abaabulkii ay waday in xukuumadda Iran ay ku ridi doonto laakiin 12 maalmood dagaalka dhacay waxa dhacay inta aan ka ogsoonahay 10% waa ka yartahay sida khabiirada Israa'iil lafirkeeda hadalka u dhigeen 90% waxyeelada Israa'iil gaartay waa qarsatay waxa kamid ah leeyahay generaalo waxa kamid ah dowlayaal waxa kamid ah agab waaweyn oo ay kamid yihiin diyaarado waxa kamid ah qasaaraha gaaray goobo xasaasi ah oo wasaaradda gaashaandhigga ciidamada sirta iyo shaybaarkii ama laboratory ugu weynaa arrimaha cilmi baarista ayaa burburay waxaas oo dhan iyo cidii ku dhimatay Israa'iil waa qarsatay dhaawaceeda ayaa leeftay hadda marka waxa leeyahay Israa'iil gudaheeda wararkan aan laga fiirsan leeyahay waxa laga yaabaa in Iran oo mar la khiyaamay oo Mareykanka iyo Israa'iil sida Iran hadalku u dhigayso Mareykankana wada hadal jeedin ah uu la galay Iran Israa'iilna is abaabuleysay oo weerar gaadma ay ku qaadaysay gudaheeda ka dhex adeeganaysay in arrintaasi ay markaasi martay oo gaadmadaasi saraakiil badan oo waxgal ah Iran looga laayay saynisyahano badan looga laayay laakiin dhinaca kale marka loo rogo Iran ayada laftirkeedu ma sharyara oo xataa waxa la leeyahay qasaaraha ay geysay 10% kaliya ay lagu ogsoon yahay Israa'iil iyo Mareykanka kaliya ogsoon hadda marka waxa weeye waxa is soo tareeya hadii Iran ay tuhunto in ay weerar gaadma qaadi karto ayada laftirkeeda waxa laga baqay waxa weeye ayaantan dhowrtus ayaa socday satellite-yadii reer galbeedka oo dhan ayaa ku jeeday shirkadda xawaalada ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxa kamid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shariicada waxaadna helaysaa 24 saac 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 153